war ilaahay ka baqo oo dadka kala celiya oo waxa ku kala celisaan ilaahay kitaabkiisa wuxuu sheegay caqligu ha soo noqdo ha la isu tanaasulo dhiigga ha la joojiyo كل ديمات كان أحمد سنة الله اسمه كان أكيد تضباط وأشوق بقابيان علماء أنصار السنة أي واحد كغيب قال علماء الدين سومالية دوك كلمة جودة هذا الكيد بديسة كلن كانوا سعودي مدلل عشاء أي ما تلوسوا قبل مقالة نيروبي حرنت ود كانكية قار كم العلماء دي كلن كهذا الشيء يا واحد يكب قاعدين مرشد سومالية إن لقى هرتقى في النضا دادين تديق مسلم كه وحين صدوا كلو باقين إن قف كستاي سومالية دي علماء وكغيب قاتان سيدي لو جوجلا علاد كجرت قبل هذا الكين سومالية culimada ayaa sidoo kale waxay shirkooda ka soo saareen bayaan oo ay ku sheegeen in loo baahan yahay in loo midoobo midnimada ummadda Soomaaliyeed isla markaana laga hortago cid kasta oo ka shaqeynaysa fidnada waxa ku soo koobaya intiina halka fadhida ilaahay bariyay dadka ilaahay kala joojiyo intiina halka fadhida ha ka qayb qaadanina kuwa madaxda ana waxa leeyahay war haddaad magac iyo maamus xataa doonaysid muslimaad disho ku heli maysid dadka dhex galo kala qabta waa kuwa ugaasiyada waa kuwa salaatiinta waa kuwa siyaasiyiinta waa inta culimada ka agdhow meelaha la isku dilayo war ilaahay ka baqo oo dadka kala celiya oo waxa ku kala celisaan ilaahay kitaabkiisa wuxuu sheegay ilaahay kitaabkiisa wuxuu sheegay ku kala celiya waxaan leeyahay haddii khilaaf yimaado aayadii hadda laynoo akhrinahay khilaafka intaan gacan aysan gaarin waxaa ka horeeya in bal marka hore maslaxa lagu dayo xataa qoladii dawladda ku kacday oo dawladda islaamka ee caadilka ka hor timid ilaahay ma dhihin markaba dagaal ku bilaaba ma dhihin alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala marka hore maslaxa ku daya heshiiskaasi haddii uu markaa socon waayo cidda gardaran la dagaalamo baa la yidhi tabaaraka wa tacaala sidaas daraaddeed caqligu ha soo noqdo هل يسوى تنازله ديك هل تشوشيو ما بقوليش لكن هذا يقول حلوة إلى توكل الرب يقول نقول وديته وإلى بنا نقطه فردا وجماعات الأمم ديته إلى بنا نقطه معقول معها الله عليه سنة علي هذا الشيء ما به شيء كلام ما به شيء كلام علماء عايشين ويجي تايو يا صومالي انت اديك كبرنا يسو ودين هذا وصل لقوليسو دولة في عنها بس هنا ولا لا حاجه تدعين اذا لبنى او تاج الورد او تاج بركينا الاله انه قلنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد إلهي توفيق داينا وفتشيو إنك رجوري بان هاي علماء مرتدى نوعه يعني شد على فرصة أنت هذا بدينا نسيو إنك واسكو بدناي وإنده إن اسكو بتي مركا مرتدى منان تله هذا كتجي ويدو كليه waxaan rabaa inaan idhaahdo ummadda Soomaaliyeed waa ummad muslima islaamnimaduna waxay keenaysaa inay dadku diintooda ku dhaqmaan inay fahansan yihiin kuna dhaqmaan ilaaliyaan haddii taa la waayo dhibaatooyin baa dhalanaya waana sunno ilaahi tabaaraka wa tacaala inay dhibaatooyinkaasi dhashaan markay dadka diintoodu khafiifto oo wax badan diintii ay ka tagaan waxaana ka mida in iyaga la isku diro oo dhiiggooda daadiyaan waa cuquubo ilaahay oo soo degta sida ilaahay qur-aanka inoogu sheegay qul huwa alqaadiru calaa an yabcatha calaykum cadaaban min fawqikum أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض إن دولك الذين لقوا سمضى أي حقوبة كتمادو إن انت الذين قيبية قبائلية كوحا الذين كدقوا ليسكوكين ديرو صدح ذبوا عذاب إلهي واحد سيداس دراديد وحان رواينا إلى هذا مدى الصوماليات إسلام لماذا إذا كرم شيكتو
waxa ilaahay xarimay tabaaraka wa tacaala waxa ugu weyn uguna khatarsan shirkiga marka laga yimaado laba dambi baa soo raaca salaadoo laga tago oo kas looga tago cudurdaar la'aan iyo dhiig muslima oo xaq darro lagu daadiyo labadaa dambi baa soo raaca dhiiggan daadanaya sababtiisu waa diintii oo fududaatay xalkiisuna waxa weeye in ilaahay loo soo noqdo oo ummaddu dhiigga ay culayskiisa garato oo dhibaatada uu leeyahay ay garato oo ilaahay loo toobad keeno in laga fogaado waxyaalaha asbaabta keenayso qabyaaladu kow ka tahay danaystanimada iyo maslaxadu laba ka tahay dawlad xumadu saddex ka tahay aafaadka bulshada haysa saldhigna ay u tahay diintii oo la fududaystay waxaan ku baaqaynaa in loo soo noqdo diinta dhiigga daadanaya la joojiyo dadka ka shaqaynayana ilaahay ay ka baqaan oo waa maanta berrina waa geeri ilaahay baa la hortegi doonaa dhiig muslima ruuxii wax yar xataa kelimo niskeed ka geysta lacagaad ku dartay iska dhaaf wakhti aad ku bixisay iska daa abaabul aad samayso iska daa gacantood leedahay iska badaa xataa kelimo niskeed ruuxii ka geystaayey ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu hortegayaa isagoo rabbi u cadhaysan yahay tabaaraka wa tacaala marka waxaan leeyahay dhiigga hala joojiyo nidaamyada iyo dawladaha u dhisan dadka u dhisani bulshada ha u turaan oo dalka ha u turaan oo madaxda iyo siyaasiyiinta si gooni ah dabka shidaya ee dadka laynaya ilaahay haga baqaan hubka iyo dawladda waxaa loogu talagalay in dadka lagu ilaaliyo dhiigga bulshada lagu ilaaliyo laguna kala ilaaliyo cadowgeeda dibaddana laga ilaaliyo laakiin dawladuhu inay shacabkooda laayaan ooy dadkii gumaadaan oo iyagu isku diraan sax maaha waxaan leeyahay haddii khilaaf yimaado aayaddii hadda laynoo akhrinahay khilaafka intaan gacan aysan gaadhin waxaa ka horreeya in bal markoo hore maslaxad lagu dayo xataa qoladii dawladda ku kacday oo dawladda islaamka ee caadilka ka hor timid ilaahay ma dhihin markaba dagaal ku bilaaba ma dhihin alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala marka hore maslaxad ku daya heshiiskaasi haddii uu markaas socon waayo cidda gardaran la dagaalama baa la yidhi tabaaraka wa tacaala sidaas daraaddeed caqligu ha soo noqdo ha laysu tanaasulo dhiigga ha la joojiyo ummaddaasi fidnada ka shaqaynaysa ama social mediaha kuwa isticmaalaya ama kuwa nidaam dawladeed isticmaalaya ama qabyaalad iyo reer kuwa isticmaalaya iyo kuwa dhaqaale ku bixinayana waxaan leenahay ilaahay ka baqa aakhiradiinnana u tura ummaddiinnana u tura dalkiinna u tura waxaan kaga baxayaa oo aan ku gebagabaynayaa dhibkaa ina haystaay haddaan la helin dantayow oo bulshada qaybaheeda kala gedisan ah oo u istaaga wakhtigu haba dheeraadee oo isu kaashada waxaan sidii loo baabi'in lahaa iska baabi'i maayo kelimaad la yidhi iyo bayaan la soo jeediyey iyo muxaadaro la akhriyeyna waa uun aad cudurdaar ka heshid walacallahum yattaquun in cid ilaahay ku anfacana waa suurtagal laakiin xalku wuxuu ku yimaadaa bulshada inteeda fayow inay israadsato odayaasheeda kuwa dhaqanka siyaasiga fayow culimmada fayow dumarka fayow dhallinyarada fayow inta fayow intay israadsadaan in dagaal dheer la galo oo qabyaaladda lagala galo oo siyaasiga kharriban lala galo oo odayga qabyaalaysaha lala galo oo kuwan social mediaha aafaysan lala galo ee waxoogaaga ka raadinaya haddaan la helin bulsho isku duuban oo waxaan dagaal ku qaada si wada jir ah hadda ilaahayow waxna sii waxaa ku xigta la imaada sababtii la imaada marka waxaan leeyahay soomaaliyay meelaad joogtaanba intiinna fayow israadsada oo yaan sidaa lagu fiirsanin dalka iyo dadka iyo diinta kuwa ayaan lagu daawanin inta la iskaashado insha allahu tacaala si wada jir ah loo howlgalo ilaahayna garabkeennuu noqonayaa biidni illahi tabaaraka wa tacala wassalaamu calaykum waraxmat ullah جزاه الله خيرا ميكروفون كواحد قدسان شيخ طاهر عبدي كلمة الشيخ إن شاء الله يكون وجها شعبك الصوماليات يواقع عن يكون جيران الشيخ أو قد بيه
إن الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad waxaan ugu faraxsannahay oo aanu khaasatan gaar ahaan ugu faraxsanahay dadka halkaa yimid oo kumanyaalka ah oo diinta islaamka u yimid inay bartaan. waxaan u raacinayaa oo ka xumahay halkan aan isugu nimid inay u ekaato meel kubad lagu ciyaarayay. sacabkan iska daaya, sacabkan aad qaadaysaan qofkan u fiirsan wuxuu odhanayaa kubaddaasi halkee lagu ciyaarayaa. marka sacabka iska dhaaf, ilaahay raalli geliye subxaanahu wa tacaala. takbiirta innagu haddaynu damacsannahay mustaqbalka ilaahay baa haya, diintiisuna waa maxfuud. inaan wax hagaajinno waa inaan u soo marnaa manhajkii salafka, kutubtii salafka inaan daraasayno. maa ana calayhi wa asxaabi buu nebigu sala allahu calayhi wasalam. daa'ifada laga warramayaana waa daa'ifada ku socota manhajkii nebiga sala allahu calayh wasalam. risaalaadka fariimaha alla u soo diray burcadkoogii waa towxiid alasmaa wasifaat, towxiid aluluuhiya waa ka maqan yihiin meesha. in muxaadaraad loo maaragtay khasiso oo dadka towxiidka laga dhiso oo aynu jidkaa qaadno waa laga maarmaan. marka allah inaga dhigo dhammaanteen ducaad ila allah oo mujtamaca islaaxisa, oo wax kale haddaad weydo kelima waaxida dadka ku dhay. dadka waani, haweenku haweenka ha waaniyaan, raggu ragga ha waaniyaan, hala waaniyo haween iyo raggoo isku jira sida hadda halkan aynu nahay. soomaali waxaa ku maaragtay ku saabsan oo wax laga naxa weeye aad iyo aad. 34 sana markii dowladdii dhacday baa ka sokaysay. anu waxaan lahaa waxbaa hagaagi oo dhulka isu furmaya, waqooyi bari, waqooyi galbeed, koonfur. laakiin hadda arrinta way sii adkaatay. qabiil baa laysu dirirayaa, jilib hoosaa laysu dirirayaa. waxaa la laynayaa haween ma aha, kuma jiraan. dhalinyar weeye hadda soo kacday oo uu cusub yahay adduunku baa loo dadejinayaa inay aadaan barsakha iyagoo loo cadhooda xagga ilaahay. alqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar iyagoo ah. arrintaa wax laga naxo weeye. dowlad goboleedada iyo dowladda federaalka waxaan u soo jeedinaynaa inay arrintan ka fiirsadaan, ayna noqonin dhiiggaa daadanaya kursi kuraadsi inuuna noqonin. war ilaahay ka baqa, war berri waa dhimanaysaan, qabri baa inaga dambeeya, sakaraad baa inaga dambeeya. war ummadda u naxariista. in waxay ku jirtaa qaxooti, roob baa ku da'aya. waa magaalooyinka soomaalida oo dhan qaxooti baa iyaa degan. iska dhaaf kuwana dowladda kenya soo magan galay, way rafaadsan yihiin, waxay cunaan bay laayihiin, tacliin ma haystaan, taageero ma haystaan. idinkiina maaragtay waxa suuroobi karta reerihiinnii iyo qoysaskiinna gaarka ah inay dagaaladan iyo midna toona ku jirin. war ilaahay ka cabsada, soomaali ilaahay ka baqa ilaahay. alaysa minkum rajulun rashiid. war wax garanaya oo wax kala soocaya inaguma jira miyaa? soomaali xabad baa adduunka oo dhan u qaybisa. waqatacnaahum fi lardi umaman. dhulka oo dhan bay u qaybsan yihiin. magaalo ayna joogin caalamkaa ma jirto. waxa keenay waa xabadda. ilaahay aanu noqonno
dhiigga hadda waa ka sheekhu ka warramaya waa xaaraam lama ogolo dhiigga inaad daadiso walaalka inaad maaragtay qabyaaladda joojiya qabyaalad baa waxaan ka dambaysa siyaasaa ka dambaysa maxamed ibraahim cigaal baan hadal fiican ka dhegaystay intuuna dhiban raxmatullaahi calayh wuxuu yidhi saan qabrigayga u ogahay inaan dhimani sidaan u ogahay waxaan u ogahay soomaali inay heshiini laakiin halla kala nasta buu yidhi hadda halla nasta nasashadii baa ku jirnaa xoogna layskuma muquunin karo waxay maanta u baahan tahay tashi wada tashi iyo maxaanku idhaahdaa dhimirsi iyo xoodin dadka insaa la isku keena weeye marka mas-uuliyadda u sarraysana madaxweyne xasan sheekh baa ayaa qaadaya amaam allah marka madaxweyne allah kugu gargaaro shaqadaada laakiin ka soo bax sala allahu calaa maxamed wali wasaxbi دكتور حسن شيخ علي ورسموني. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه baalku hadduu diido waa iska dhigaya laakiin kana aqbalaan malaynaya الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سيدا دكتور علي شاقي ما دام أنه دلنيراهي وضيال يا علمدي وين تشوكتو آد بانوسو كوبيا إن شاء الله تعالى آيات يا حديثنا قلي مايو لكن لما قضبوا بان تلماميا مدوحان كلها الله يا مسؤوليين يددك إلهي حلك وديبي والله ay ugu saameyn badan yihiin mas'uuliyiinta siyaasadeed iyo mas'uuliyiinta dhaqanka waayo mas'uuliyiinta siyaasadeedna waa kuwa wax fulinaya kuwa dhaqankuna waa kuwa soo dhisa weeye labada waxaan leeyahay maanta waxa la inooga fadhiyay mujtamaca Soomaaliyeed boqolkiiba 70 ama 80 waa dhalinyaro hawlkana waa laga arkaya waxay u baahnaayeen horumar waxay u baahnaayeen nolol waxay u baahnaayeen mustaqbal wanaagsan in loo sameeyo qayrkeen iyo madaxdii la midi ninka dhalinyarada ah markuu jaamacadda ka baxo gurigii uu degi lahaa iyo lacagtii uu ku guursan lahaa iyo shaqadii uu qaban lahaa baa loo diyaariyay dad inaga dhaqaalo badanna maaha maanta waxa la idinka doonayay dhalinyarada mustaqbalkooda inaad ka fakartaan inaad wax u soo kordhisaan laakiin maanta halkaad mustaqbal uga dhisi lahaydeen dabka inaad ku shidaan oo aad isku dhambaysaan oo aan isleeyahay markii la xisaabtamay baa la yidhi waar waynugu bateene horta aynu gaagaabino aynu isku yarayno iyaga inta yaree soo hadhayna marka aynu shaqo abuur u samayno haddaanu caqligoodu sidaa u shaqaynayn waxaan leeyahay war alle subxaanahu wa tacaala kaga cabsada haddaydan horumar u samayn karin xilalkiinana iska haysta kala badbaadiya un waxa ummaddu ay ku noolaanaysaa insha allahu tacaala nabad hadday hesho horumar way iska gaadhi doontaa insha allahu tacaala ummadda Soomaaliyeed walibana dadka isu sita hubka isu sitana iyagana hal mid baan odhanaya maanta aayadii xadiisoona uu sheegi maayo waxaan leeyahay qarni ka qarni baa la isa soo dilay 100 sano ka hor meeshii la isku dilay baa maanta la is hor fadhiyaa qolo waliba waxay doonaysaa lib iyo guul inay gaadhay tiraahdo maalintii noocaas ahayd taariikh badan baa la taxaya horena loo taxay maantana la leeyahay taariikh cusub baa qormaysa war sheekadu hadday tahay inaad wax iska celin kartaan qabiil hebelow waxbaad iska celiseen sheekadu hadday tahay dhulkiina inaad difaacan kartaa waa difaacateen ee alle subxaanahu wa tacaala dhiiggaha lagaga boqo haddii dhiig la daadiyo ay tahay iyo haddii ay tahay in la iskumaado iyo haddii ay tahay waxyaabo badan oo ilaahay xarimay la sameeyo wax badan baa la sameeyey ee maanta caqligu inuu shaqeeyo oo ummaddan aayaheeda iyo masiirkeeda iyo mustaqbalkeeda inay ka fakarto
waxaan kaga baxayaa habeen saddexaad gruub midowga culimmada afrika oo aan ku jiro ayaa nin Senegaaliya wuxuu soo dhigay dowladaha Afrika waxa weeye 60kii sano ugu dambeeyay horukac dhaqaale ay sameynayeen xisaab baa saa u wareegaysa marba dowlad baa soo kacaysa 20ka dowladood ugu dhaqaalaha badan ilaa kontonaadkii ilaa hadda baa system loo sameeyay lagu xisaabinayo 20kaas baa shaashada ka soo baxaya dhowr iyo 50ka dowladood Afrika waxaan eegayaa ummadii Soomaaliyeed bal hal sano inay soo gasho hal mar bay soo gelin waxaan u maleynayaa haddii liistada la wada bandhigi lahaana meel dambe ku jiri lahayd marka wax ilaahay loogu mahadiyo ilaahay wayna siiyey cibaado hadday tahay masaajidadii iyo buuxa boqolkiiba boqol muslim sunni shaaficiya wax badan oo la wadaagaya jira insha Allah ta'ala ilaahay waxaynu ka baryaynaa bi asmaa'il husna inta inoo joogta haddii wana ku harsan yahay oo ummadda aayaheeda ay wax ka bedelayaan haddii ilaahay wax ku harsan yahayna ilaahay gacantooda wax ku hagaajiyo haddaan khayr ka soo soconna meelay joogaan ba ilaahay ummadda ha dhaafiyo aaminda ilaahay hayna dhaafiyo kuwa ka khayr badanna la subxaanahu wa tacaala inoogu bedelo وصلى الله وسلم. الخير دكتور محمود أبو شيبة. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إن بدن بي علماء محاضرات شيديين هل كان كهدلين وحبدنا وكهدلين صومالي قومية اللي يراهدو وهل قبيل عذرك كلا رياضي وقبيالة دوي وحاس قورسدي قبيالة يقاب يخمرو يقري يخلاف مركاسي واحد على قاغل بيدالين قاغليال بيدالين قاب بيغنهيان خمر عبهيان مركاسي دل يبدع يوحد بريهان كسعود بريها بالشدة واركتين Soomaali waxaan leenahay Soomaaliyeey 1978 ayaa xarbiga ahliga ah bilowday imisa laga joogaa 78 afartan iyo imisa laga joogaa iyo 6 sano 46 sano ayaa laga joogaa Sooma 46 sano dagaalkii ahliga ah socdaa cidna kuma faa'iido kama helin وجري ودمشق وقبلا وأصيقاد وأغون وبرور واي وحلقوا دقالما يا دول باليري علماء واتشوغاني قبيل دول مله قبيل دول يمجرو دول كقف باهنتيه نوليي من حيا أرضا ميتة فهو الله قف كدول ولا ياساس كواقف قربا كدستي بير بعد كتبعتي baraag baa ka samaysatay adaa iska leh laakiin reehel baa iska leh 500 kiiloomitir lama soo gali karo meelna kuma taalo dhulka markii ilaahay baa dhulka iska leh innal arda lillahi yurithuha man yashaa min ibadihi wal aaqibatu lil muttaqin markii laga yimaado rabbi subhanahu wa ta'ala thumma dadka mas'uuliyiinta iyo dawladda mas'uulka dhulka ee shacabka iyo qabaa'ilku male dhulkuna waa cid la Soomaaliya jooga dhulka dhulka iska cidlada anigu waxaan ku taliyaa oo Soomaalida ku iraada wa dhulkan cidlada oo aad ka qaxaysaan dad dagaal loo baahan yahay 10 milyan oo Turkiya 10 milyan oo Masaariya 10 milyan hal soo dejiyo muslim daga hadii kala amxaarada qarmoon baa dagaysa dhulka ana amxaarada gaalada dagaysa soo qaxaysa hadda Soomaa annaga isku xoog badan markay hal amxaara arkaan ishi badaan durullo way leeyihiin marka amxaar arkaa wasuudayaan ayaguna waa isbaabiinayaan war dilka iska daaya waxa keeli maysaane hal waxaan ku qatimayaa kuwa islaynahayo qofka dhintay ee reebal u dhintay ilmihiisi maxay taraan agoontii maxay u qabteen sheekhadu ka dhintay maxay tareen ka naawaca maxay tareen waxba
آخرنا وحبا كتري ميان كل نفس بما كسبت رهينة حسابته وقف قف مسؤوليته قبيل معها أرر معها كوح معها ولا تزير وزيرة وزر أخرى هل هالشيء علماء وحن لا علماء الله هذا الك وحكو الدرع فعل كدر هذا الك علماء عقلاء سياسيين تفيعا هذا الك وحلو ضدك على الوب حالك العليو إلهنا أمد الصوماليين أولادها كتوجيه دبك أنت في عنا الله قرب قالوا أنت حنا الله هنونية نمانك براه بالشدة كهذا يا حب الله يا جبها كهذا براه بالشدة إيه قاغلا ياشا ولا هذا يسنين ده هذا يسنين وحاس هذا يرنينا وحبا معنا ملأ وحويان وضد انتواي وحاس ما أنت وقامين هي وردا بقى مثلا حتى براه بالشدة سوق لنا ميت كسوق لنا وصوديننا وركوف عننا حمانتا إلى توفيق النوافذ والسلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله. أحسنت. صلاة عصر كي يدعى دير ونسوق إن شاء الله الدكتور فؤاد كسودو بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. runtii ummadda Soomaaliyeed iyagoo muslina oo wax badan wadaaga ayay haddana muddo dheer waxay ka bixi waayeen inay isdilaan. waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam dardaarankii nabiga ala la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd gadaashay gaalnimaha u noqonina aad unuunka iska gurtaan oo qolaba qole ay disho. Soomaali geeska gees dagaal waa laga kari waayay wax laga faa'iidayo waa la garan waayay waa tuulaha abshir bacadla ilaahay ha u naxariistee wuxuu yidhi waa waxa qaxootiga ka dhigay 100,000 oo qoys waa waxa qaxootiga ka dhigay 100,000 oo qoys waa waxa qalbiga noogu riday qaata ubadkiina waa shay quraafaadaho aad qadarisaan wuxuu soo wada wuxuu yidhi wax qabiil ka daran jahannabaan kale aqoontaydu waa runtiis wax aad iyo aad ula weeye ummadii Soomaaliyeed wali saasay isu dilaysaa ummadda waxaan leenahay ilaahay u toobad keena war qabaa'ilku dagaalka joojiya war siyaasiyiintu dagaalka joojiya war saraakiishu dagaalka joojiya war qurba joogto lacagtaad ku bixinaysaan joojiya war dumar iyo dhalinyaro taageerada iyo waxaad u fidinaysaan joojiya ya maxaa yeelay inaan halaagsano oo aan dabar goono ayaan ku dhownahay dalkeena waa ka soo cararnay meel walba Soomaali baa daadsan wadanka la isku dilayana waa saa uu sheegayo waa cidla cid ma joogto haddaad socotid 300 kilomitir waxa laga yaabaa inaad bacid arag haddana waa la isdilayaa dhul baa la isku dilayaa barkad xun baa la isku dilayaa siyaasaddu waa yani qabiilku waa batrool siyaasaddu ay isticmaasho siyaasigu uu ka awrkacsado waxa la rabaa arrinta iyada ah inaan ka waantowno oo ilaahay aan uga baqno war arrintaas dhalinyaro iyo gabdho diyaar mawtiin arrinta inaan ka waantowdaan inaynan taageerin diyaar mawtiin ilaahay hortii bari ma ka nahay ilaahu markhaati ka ahaw ilaahu waxaan kaa baryaynaa ilaahu ummadda Soomaaliyeed qulubtooda isu soo jooydi ilaahu midnimo sii ilaahu awood sii ilaahu khilaafka ka qaad ilaahu rabbi raxmaanu diintaada u celi ilaahu madax fiican oo hogaamisa oo adiga ku hoggaansan ilaahu sii ilaahu madax fiican oo adiga ku hoggaansan oo iyagana hoggaamisa ilaahu rabbi oo sii ilaahu khaatumadeena hagaaji ilaahu khaatumadeena hagaaji subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sidaan tilmaamayo salaadii waa taagan tahay waa hal daqiiqo barakallahu fiikum dr Ahmed Daldiif bismillahir rahmanir rahim hal daqiiqo waa dhamaad som maxaa la hadli halkaas daqiiqo haddaan ka faa'iidaysto horta Soomaaliya hadda waxaa la sheegay 47 sano ay dagaal ku jiraan marka wax kale dhimin ma laha ina ummadaha madoob intay shiraan kuwaan mahashiina hal qaybiyo qaar hal siiyo dawlad fulaan hal siiyo marka ina dhamaantan ay noqdo maartay did oo tabaan dawlad lahayn aniga kalimadeedu waxaan ku soo maartay aan ku koobaya dadka mas'uuliyiinta ah oo baarlamaanka oo fadhiya oo dooranaya dadka mas'uuliyiinta ah
oo u daran kaliya inaa maalintaas waaba u soo go'ay fasalba u soo go'ay kan meegaad bixinaysa intaas aan la fiirinaynin midkan kee wadani ah kee ahli diin ah kee ma aan la fiirinaynin maxaa tahaysa kan muxuu haystaa marka haddii ay noqoto arrintii dadkii meeshii looga talinayay oo baarlamaanka Soomaaliya uu noqday meel dadka lagu gato maxaad u malaynaysaa wadanka Soomaaliya dhumin ana waxaan leeyahay kuwa baarlamaanka Ilaahay ka absadaano dadka soo gelinayaan han noqdaano dad ay la soo hoshay oo diin lagu soo hoshay oo akhlaaq lagu soo hoshay oo wadaninimo lagu soo hoshay yaani noqonin dad oo maartay la soo gatay oo biri lacagta haduu helo asa wadanka waxba ku falaynin marka walaalayaalow Soomaaliya haddaan nahay ma garanay waxna kala qaaday diintaayna waa mid luqadayna waa mid midibkayna waa mid kulliga midnimada wuxda waynoo dhamaatay laakiin waxa dhibka nugu hayo waa tii rasuulku yiri alayhi salaatu wasalaam da'uha fa inna muntina qurunkaasna baabiyay qurunkaas haddaan la iska celinin oo ma qofka ku fogaanin Soomaali waxay ku socotaa anay waxa aad u ayidaya kelimada sheekh umal uu maartay oo soo jeediyay dad fiyo culumadii oo intii mujtamaca aqsaamtiisa ka kooban tahay dad fiyo inta la helo oo u kacaan oo ummadan u taliyaan ma haddii kala 47 sano saas loogu soconaya saas waa ina maanta dardaaranka oo maanta shirkan uu ka soo baxo waaba ku soo baxay waaba laga hadlaybo waaba dardaartii hadda gulgulusha la jooga Soomaa marka insha Allah Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ummadan Ilaahay inuu mideeyo ummadan Ilaahay mid ka dhigo oo maartay maanta waana la majarsanaya waxaan leeyahay milyan xufaad haddana ay diinta inaga marta quraanka aawd marka walaalayaalow insha Allah ka cabsano ummadan inaanu turno wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum Sheikh Yahya, don't kill your brother, kill your dad. Don't kill your brother, kill your dad. أنا والله بارك الله فيك هاي داني إن شاء الله. بسم الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحي روحان ربما إن نسحسوس إنه سلف كم حكير هذين في الندى. سلف كي سيدا سفيان ابن عيينة رضي الله عنه وشاقي سوقو كورينا يا خلف ابن حوشب وحير سلف كامركي في الندى مقلان قبي أولية هي امرو قيس بي أخرنجرين الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل امرو قيس حكم مثلي دقالك في النظر قبرير وعرض وقفك سو جعل يحي قفك سو ربا إنو قاتو قبدي وحوينا مركي وينات ودقالك سيدا ويحي وكالي وقروح دويدي اي تكتو ولد عجوزا غير ذات حليلي قف جعل مالي والله عرري مركي دق نقطه قبدي دقال كان واسيد وكالي شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل قف دوانا يهرات سنة مالي في النذا واسيدا دقال كو اللي جعل يهي لكن مركز دنبي فرتا لقنيني سيدو كالي ابن مليكة رضي الله عنه في النظر مركي لغشيكي ودعي سنجري تانا إنا كنت دعي سنو اللهم إنا نعوذ بك أن نفتتن اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو أن نفتتن بك دعي سنجري تاسان صدر دارمينا دعاء أنا إن لبضيو حالك في النظر يدقال كان آخر كيسين وصدان نقوني والحمد لله رب العالمين وحن صدو وين يا فوما MB, my brother, my friend, Mr. Abdul Aziz, فليتفضل مشكورا مأجورا. شكرا شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا علماء كما ترسني وحن وعدي سوما جودين كري لكن علماء وحن الشيء لها باريتان الاسم أنا ورد وحن كشقيا الرماها amniga iyo dadka la sukeenaya dadka isdagaalsan ummadda isku dhacsan
qabiilaadka isdagaalaya inaan isu keenna commission ama guddi shaqadaas ka shaqeeyo ayaan commissioner ka ahay baaritaan la sameeyey waxaa la arkay in dadka ay wax u dilaan ayadoo ka maqan tahay saddexdan sabab mid ka mid ah ama laba ka mid ah ama saddexdaba qofku waa inuu diin la'aan yahay kow laba ama qofku waa inuu yahay reer magaalo xumo ay hayso tacliin xumo macnaha ilbaax xumo ay hayso saddex dowlad la'aan dowlad uu ka baqaaye ay jirin waddanka aan ka hadlayna saddexdaba ma ku sifoobay mase kuma sifoobin marka arrintaas arraa cumar inay falanqayso mid ay u falanqayso ay fiiriso war dadka madiin la'aan hayso dowlad la'aan ma jirta waa ognahay laakiin tacliinna ma loo baahan yahay saddexda qodob in laga shaqeeyo la gidgidiyaa loo baahan yahay finally sheekh waxaan ku sheegaa Soomaali waxay profession ka dhigatay qaxootinimo qof profession kisba qaxooti u yahay adana wadanka u dayaysa mashaakil waay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ايش عبد الرحمن هل دقيقة بارك الله فيك عبد الرحمن طويل بارك الله الحمد لله وثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه محمد مدائنا متقنا ندوة تهي صومالي دغالada faraha badan ka soo maxal wax liya halkeeda waa si culimada igu horeyso dhan sheegana qofka dadka markuu u dambeeyo wuxuu sheegay inuu helo badan yahay wax cusub oo la iimaan karin waa in ilaahay laga baqo mid koobaad ilaahayna ka baqna weeye subhanahu wa ta'ala laana qofka ilaahay haduu ka baqo wax badan baa celinaya waasic buu yeelanaya waasic diin uu yeelanaya wax badan buu ka qabsoomaya Soomaalida diin cilo ma qabto Soomaalida waa hal ummad Soomaalida waa hal luqo Soomaalida waa hal dagaan waxa u dhaxay waa fitno iyo sheedaan wuxuu ka shaqeeyay xaqada maxaa laga hadlayaa ummadaha markaas u dhaqdaan maxay khatar u yihiin inay cirib go'aan haddii hadda sida dadka dawladda hadda barkoodna hadda aan shay ku dhacday inuu dhacdo oo qayba dawladda la raaciyo qayba meel loo diro qayba ma taqaana dawladda ayaan ka tirsan lagu daro maxaa noo soo baxaysa dallaan war ma dallaanta naanfici war qaxootigan ma soconayo war bari waa la isu soo raray dib baa la isu soo celini xagaas ku soo noqoni war guriga aad ka guurtaa dab kulli xagaas soo noqoni war ma ilaahay laga baqo war qabiil xaquuqda ka geynaya ana wali ma maqal intaan aqliyeystay qabiil wax lagu dhigay wax lagu anfaca wali ma maqal ruux haduu baahan wax lagu ma siiyo hadii deen uu yeesho wax lagu ma siiyo muxuu u keeni karaa oo kaliya waxba la dilay wax ka bixi waxba la dhacay dhaca wax ka soo bixi meeqa wiilo ka dhimatay saad wax u heli kartaa iyo wax la mid ah ayaa dhacdo markii ilaahay intaan ka cabsoono Soomaalida socodka aan wadno socod fiican ma aho in qabiil la isu dila sax ma aho in labada walaalaha inta xabad iska hortimaado xaqiiqata waxa dhamaanaya dhalinyaro oo baan si la sheegay Soomaalida dadka hadda maalmaha dhalinyaro baan doqoodi maxal moodaan iska leedaan war dhalinyarada hadii naga dhamaatay maxaa noo soo harayo hadii qolaba ay si dagaal u gashay ee haddana ay si baabado intay soo harteen inta qoryo la isku dhigo la isu diro meesha joogan la isku laayo waxa la isku haysta dhul uu ka badan yahay waxa la isku haysta dhul uu ka badan yahay waxa la isku haysta waa diin la'aan diinta laga tagay marka dhulna kuuma filaanayo magaalana kuuma filaanayso xoolana kuuma filaan maayin waa si la sheegay nin la gatay oo markuu barnaamijka galay lacag ku galay wuxuu ku taraama laho markii lacagta ka dhamaato ama bari ka dhamaatana meeshu ka yimid qaxootigu ku noqoni asoo ma taqaana soo ahaan jiray ala kulli xaal ilaahay maxaan ka barayna subhanahu wa ta'ala ummadda Soomaalida inuu kala qaboojiyo ilaahay qoriyo waata ilaahay Soomaalida ha ka dhigo ilaahay qabiilka ha ka yareeyo ilaahay qabiilka ha naga bixiyo ilaahay dad isdical ha naga dhigo ilaahay diinta ha noo soo celiyo ilaahay muxuu ilaahay halladina aamanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan war furqan baan u baahannahay waxna kale hagaan u baahannahay war diinta aan u soo noqono assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh نور كبير حربا نص دقيقة تي شيخ حسين جيبوتي تاذا اسكو قادن بس نص دقيقة بس جزاك الخير
الحمد لله إلهي بما هذا ولن نشكر يا أخوتي في الله. الله سبحانه وتعالى قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قيمة الإنسان بالدين marka waxaa laga doonayaa insaanka tawba iyo taqyiir al-a'maal. haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala insaanka uu tawba keeno oo acmaashii xumeed uu ka tago uu iska bedelo acmaal wanaagsan oo maalmahan oo dhan culimmada ay nagala hadlayeen uu la yimaado insaanka qiimo u yeelanaya. liajli hada ummadda ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa ku qiimeeyey diin iyo dadaal diineed. allahuma rabada sacaadat al-insaan wa fawza al-insaan wa falaaxa al-insaan بكثرة الأشياء ولا بقلة الأشياء ولا بفقدان الأشياء، بل ربط سعادة الإنسان وفوز الإنسان وفلاح الإنسان في هذه الدنيا وفي الآخرة فقط في الدين. لأجل هذا يا أخوتي في الله إن دينتي دعوتك شقينو هدان دينتي دعوتك شقينو الله سبحانه وتعالى يفتح باب الهداية لغير المسلمين ويفتح باب التوبة للمسلمين. labada shay haddaan la nimaadno dadaal diineed haddaan la nimaadno ilaahay albaabka hidaayada ayuu khayru lmuslimiin u furayaa. muslimiintana wuxuu u furayaa baabu tawba. liajli hada inaan diinta ka shaqayno oo bii'ada maanta aan arkayno 3 cisho 4 cisho inta soo islaamta waan arkaynaa. liajli hada haddaan bii'at aliimaan الرسول عليه الصلاة والسلام هجر من مكة إلى مدينة المنورة كون بيئة الإيمان وبيئة الدين ودخلوا الناس أفواجا أفواجا. إلى دينتك شغلنا سعودية رومانيا إن شاء الله. الله نوافق. بارك الله فيك وما شاء الله وسوق وقتي. شيخ محمد إدريس مير سدو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عدك وحوى حريهي وحبضا عدك ما قارسين كرو لكن الكلمة ما دام شيخ ويقخص بيمان به متى غانان مركوه الرئيس هلكا وحن كفردنا قال لنا نيروبي دل كان كينيا nabadgelyadan aan dacwadan iyo diintan iyo khayrkan aan ku gudanayno bacdallaahi waa dowladda nidaamkan iyo amnigan iyo xorriyaddan dadka ku kala hagaysa oo u soo jeeda baan ku fadhinaa meesha dowladdaan ku fadhinaa. marka horta waa u mahad celinaynaa halkan waa uga mahad celinaynaa bacda shukri illaahi dadka reer Kenya dowlad ahaan iyo shacab ahaan intaba dalkan ilaahay subxaanahu wa tacaala deganaantiisa iyo nabadgelyadiisa iyo xasiloonidiisa iyo khayrka dadka muslimiinta ay ku haystaan allah u siyaadiyo. allah inoo daayo. allah inoo siyaadiyo. inta midda labaad waxa weeye weligiin ma aragteen idinku cisbitaalka ama xabsiga ama markaska la geliyo dadka waalwaalan qofna ma tegin idinka idinka mid ah ma tagteen ama ma sawirsan kartaan dadkaasoo meel laguma hayo meel baa lagu hayaa. ka warrama dadka cisbitaalkaas ku jira ee dee sidaas xaaladoodu noqoto haddii iyaga inta la soo daayo dowladdan Kenya loo dhiibo ka warram militariga ciidanka xukunka wasaaradda baarlamaanka haddii iyaga loo dhiibo ka war fadhi karayna meesha maya. hadda ka hor baa sheekh mustafa wuxuu yidhi soomaalidu waa dadka keliya ee dadkooda waalan dhegaysta. ma maqasheen warkaas? aniga marka mid kale aan ku darayaa soomaalidu waa dalka keliya waa dadka keliya dadka waalwaalani xukumaan ha iska qabtaan inta miyir kale sida uu sheegay sheekh maxamed cabdi umal. war dad miyir qabaa dagaalka ma wadaan, dad miyir qabaa dawlad ma hayaan, dad miyir qabaa meesha idinma joogaan. ee intiina miyirka qabtaa intaan waalan ha laga qabto ha la daaweeyo meel ha la geliyo markaasaad noolaanaysaan. bilahi tawfiiq.
جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ مصطفى. الشيخ مصطفى ما كدينا ما كدينا شيخ علي هذه إن مغلب أيه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، halkan mala waxaa la rabaa in Soomaali kelmad loo sheego meel ay joogtaba. nabiyullaahi Muxamed calayhi salaatu wassalaam afar maalmood gudahood buu 3 jeer khudbadeeyey. afar maalmood ayuu 3 jeer khudbadeeyey nabigu calayhi salaatu wassalaam. Carafa iyadoo la joogu khudbadeeyey, yowmu naxar buu khudbadeeyey, اليوم الثاني من أيام التشريق بخطبتي وأفر مع الماضي 3 خطبات. وحي كتب الحديث يا علماء الريان 3 خطبات انت بدرنا يسكوح شيء انت ابنا مسلم وحوق دقيقة ولها وحنا دين كدقيقة ديقين يا مالكين يا عرضين شرفتين هنا وحياشان intaas waa idinka xaaraan. markaasuu nabigu wuxuu ku celceliyey calayhi salaatu wasalaam falaa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd. markii la yidhi dimaaga iyo amwaalka iyo acraaduba xaaraan bay idinka yihin sida maalmahan xurmada leh iyo beledkan xurmada leh uu xaaraanta u yahay ayuu nabigu wuxuu yidhi aniga gadaashay gaalaha u noqonina badhba badhka kale madaxa ka jaro. soomaali waxaan weydiinaynaa markaa ma nebi maxamed baa dhegaysan mise odayga kula dagaalan ama siyaasi ha noqdo ama oday qabiil ha noqdee ma nebi maxamed baad maqli calayhi salaatu wassalaam mise kaa intaad maqashaabaad aakhiro hor iman doonta adigoo kaa daba socda. isagoo nebigu calayhi salaatu wassalaam axaadiistiisa uu ku tilmaamayo ahlu cirka dadka degan iyo dhulka cidda degan hadday isugu tagaan qof muslima dilistii la akabbahum allahu fi nnaar ilaahay dhammaantood naar buu ku gurayaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wassalaam. wuxuu kaloo nebigu yidhi kullu danbin casa allahu an yakfirah, dembi walba in ilaahay dhaafaa baa la arkaa ilaa man maata mushrikan, mid gaalnimo ku dhintay aw mu'minun qatala mu'minan mutacamida. labadaa xadiidka nebigu wuxuu ka soo reebayaa kuwa dembigooda la dhaafaya inay ka tirsan yihiin. bale wuxuu kaloo nebigu tilmaamay calayhi salaatu wassalaam qofka qof mu'mina dila oo fakhtabata biqatli oo ku farxa dilkiisa, waxaan yuutuubaradu ay shubayaan iyo dadku waxaanay ku sheeg iyo fadhi ku dararku reer hebel baanu leynay intan baa ka dhintay intan qofka qof mu'mina intuu dilo ku farxa dilkiisa laa yaqbalu allahu minhu cadlan walaa sarfa. sunniya faraltoona alla kama aqbala baa la yidhi. soomaali ma waxay rabtaa inaan ilaahay sunniya faraltoona ka aqbalin? ma waxay rabtaa inay ilaahay la collowdo? ma intaad inaan kula mida raacdo warkiisa baad ilaahay la colloobi doontaa subxaana wa tacaala. waxa uu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wassalaam أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة. وحان شيخ يودم وحادث حسن وصحيحة. أيها الأحبة، هذين الربنا دبتنين يحلل أنتو صومالي أنت الدولة شيخته مع إثيوبيا كتر سمكودر كل الكلايدا سكوة الدر. أنت الصومالي حكمت ديك باك السعودة، أنت الصومالي حكمت ديك كالسعودة عد كلمة هو يدا iyagaa isdilaya. nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddii aanay dadka muslimiinta iyo ilaahay kitaabkiisa isku xukumin jacala allahu ba'sahum baynahum, ilaahay baa dhibtooda iyaga ka dhiga dhexdooda. haddaynu rabno inaynu badbaadno waa inaynu idhaahnaa war waxaynu isku hayno ilaahay kitaabkiisa aan u bandhigno. waxaynu isku hayno bini aadamku wuu isqabtaa, dhib maaha. aadamuhu waa isqabtaa,
laakiin Soomaalidu waa dadka xalkoodu dhibtooda ka dhib badan yahay hal qof la dilayaa maxaa xal aynu uga dhignaa saddex ka soo dila war qof bay joogtay qof aan ka wada hadalno maxaa laga yeelay qofkani dhimay tii allaaba timo la dil maxaa xal ah waxa xal in shan reer hebel loo dilo kuwa kalena maxay xal hayaan shan bay naga dilanay 10 loo dilo ilaa inta naarta ku wada gurmaysaan ila meel kale kuma socotaane reeruhu waxay rabaan inay naarta buuxiyaan qolana qolada kale inaanay ka boos badanin waxaan ku soo koobayaa intiina halkan fadhida ilaahay bariya in dadka ilaahay kala joojiyo intiina halkan fadhida ha ka qayb qaadanina inta warkan meel un ka maqlaysana waxaan leeyahay bal waxaad isku daydaa ma ilaahay baa kula weyn mise bini aadamka kula weyn ma ilaahay warku ku yiri baa kula weyn mise aadanuhu warku sheegayo wuxuu doonaba ku sheego ayaa kula weyn aakhira maxaad ilaahay la hortagi dagaal baad ku sii ordaysaa waad geeriyooni sow naar maaha ilaahay uu igub naar baan doonayaa waxaad la ordaysaa maaha kuwa madaxdaana waxaan leeyahay war haddaad magac iyo maamuus doonaysaan xataa dunawiya aakhiraba haddaydan rabin yaa magac iyo maamuus duniyeed doonaysaan nabigu calayhi salaatu wasalaam inanku awow ahaa intuu eegay buu wuxuu yidhi inankaygani waa sayid waa madax waayo laba fi oo waaweyn oo muslimiina ilaahay subxaana wa tacaala ku kala qaboojinaya war haddaad magac iyo maamuus xataa doonaysid muslim aad disho ku heli mayside dadka dhex galoo kala qabta waa kuwa ugaasyada ah waa kuwa salaatiinta ah waa kuwa siyaasiyiinta ah waa inta culamadee ka agdhadhow meelaha la isku dilayo war ilaahay ka baqo oo dadka kala celiya oo waxaa ku kala celisaan ilaahay kitaabkiisa wuxuu sheegayo إلهي كتاب كيسوح الشيخ يكون كالعليا صلى الله على محمد جزاه الله خيرا فضيلة الشيخ القارئ المقرئ الشيخ عبد الرجيد شعل صوفي حليها هي لبق قيبوت كلمة كؤادا موضوعا وكهل لأنه هي الدعاء دي انت أنا واحد محتالة بيان كي علماء ذا أولا نقول الأقرين دون فضيلة الشيخ الدكتور فؤاد وأقرين دون مركو الشيخ كلمة دي سيرات اللهم بسم الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد marka ugu horeysa kelimadan ku saabsan ee culimadu ay soo wada mareen carabkoodana ku soo dhufteen dilka iyo istagaalka iyo tafarruqan iyo qabaligan iyo asaasan maalintii nabi aadam aabaheen aadam abulbashar isaga iyo ummuna xawaa ilaahay dhulka u soo dejiyey waxaa la soo raacsiiyey bacdukum libacdin caduw qulna hbituu minha jamiican bacdukum libacdin caduw waa xukmi ilaahay oo jira weeye in iqtitaal uu jiro waana la socotaan oo labadii ugu horreysay ee isdilay ilmo aadan bay ahaayeen waa iska soo socotay mar kastaba diinta ilaahay iyo ilaahay oo lagu xirmo iyo aakhiro oo la rumeeyo unbaa xal ahaan jirtay had iyo goor nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dadka loo soo diray dad laguma tilmaami karin iqtitaal dhexdooda ugu dhaafay iyagii dhexdooda dad laga waaninayey aabba laga waaninayey oo lagala hadlayey gabadhii uu dhalay ee fildatu kabidihi gabal yaroo beerkiisa ah iyadoo soo jeeda inuu intuu god u qodo afgambi ugu tuuro u aaso waxaa la sheegaa marmarka qaarkii oo siyarka ku timid nin yani ka sheekaynaya xaaladiisii hore anna gabadhayda god baan u qodayaa buu yidhi iyaduna yani garkayga ciidda soo gaadhay bay iga masaxaysay markaasuu afgambi ugu tuuray dad noocaasa ayaa ilaahay u soo diray oo diinta ilaahay xal uga dhigay oo markii dambe dad noqday oo qaadat alumam noqday oo isku mid noqday oo kal jasad alwaaxid suu nebigu ku tilmaamay hal jasad keliya noqday waa bidiin illaahi wey
marka waxaan u malayn kelimada meeshan yani ku wajahan ama aan ka mutaysan tahay ama aan dhagaysanayno culimmada hadalkooda waxa weeye waa hadalka aan ku celcelinayno oo ah xalku waa inaan ilaahay u noqono waa inaan tooba keenno anu bariyihii xamar mar baan tagtegi jiray oo adigu 93 94 goor ahayd garan maayo meel aeroboor waxaa jiray xaggan daafeed iyo agtiisa ah lambar 50 miyo ah yaan ka soo degnay koox badan baan ahaynoo multaqa dacawi aan u soconay iyo kulan diineed baan u soconay culimmadii aan wada soconay oo dhan markii aan afisyooni marayna baan ka waxaan aan leexano waa leexan xageen ku leexanay meel lagu tilmaamay tiirka la isku toogto ma taqaanay ma maqasheen dadkii Soomaali halkaasaan tagnay oo waxaan ilaa culimayo aynu tooba keenno waxaan u malaynayaa maalintii raggii shuhadada ahaa ee ilaahay dartiis loo dilay iyo diinta ilaahay u istaageen caradii uu ilaahay maalintaa carooday unbaa weli socoto isbedbedelaysa marka inaanu horto ka tooba keenno sheekha wakiilaha kam 70 ma 70 iyo waligeed dagaal qabiil maba dhammaanba weligiisba laakiin hadiya goor waxaa xal u ah inaan ilaahay u tooba keenno rabbigaan u noqono oo diinteennu ay dhabnaga noqoto fardan wa jamaacatin wa umaman in diintani ay dhabnaga noqoto macquul ma aha allah oo caraysan in cali iyo hebel ay heshiiyaan maba heshiin karaanba culummo ducaysayna way jirtaay oo yidhi ilaahayow Soomaali inta ay adiga ku baranayso oo diintaada u soo noqonayso dawlad fiican haba siin wala ilaa hadda ku ducaynaysaan ognahay oo taagan wardiga u taagan marka inaan ilaahay u noqono rabbigan subhanahu wa ta'ala u tawba keenno hadalkii baan si adkaynaya culimadu ay celceliyeen oo ah qof alla qofkii wax ka geysan kara inuu arinta hor joogsado waa meeshii ugu weynayd waa kalimadii uu ku jihaadi lahaa fi sabiilillahi weeye dadka walaalaheen islaayna halla kala ilaaliyo insha Allah ta'ala diintana aan u soo noqono waxa khayr ee halkan ka dhacay ee culimadu inoo sheegaysayna aynu isku dayno fardan wa jamaacatin inaan ku dhaqanno allahna waafaji insha Allah بارك الله فيك waxaan jeclaan lahaa in fadiilada sheekh Dr. Fuad inuu soo istaago oo bayaankii culimada aqriyo fadfada mashkuuran بيان البيان الختامي بسم الله الرحمن الرحيم كلن ديميت كتضباد أنصار السنة نيروبي كينيا تاريخ ذو وسديدي لباتن كي بشي لبي طبناد لبكون يافري لباتن كا بيان وحمان تلسوق قبقبيي كلن ديميت كي تضباد أنصار السنة أو كبعي مقالة نيروبي عاصمة كينيا kulanka waxa ka soo qayb galay culumo tiro badan oo ka kala yimid gudaha dalka Kenya iyo dibadiisaba haddaba kulankaas oo culimadu ku falanqaysay arrimo badan oo khuseeya nolosha dadka muslimka ah guud ahaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed mid adduun iyo mid aakhiraba ayaa waxa goobjoog ka ahaa dad ka badan 10,000 oo qof haddaba marka hore waxay mahadda rabbi kadib culimadu u mahad celinayaan dawladda Kenya xukuumad iyo shacba maadaama gudaheeda lagu qabto kulan diimeedkan toddoba jirsaday gaar ahaan madaxda Soomaalida ah ee ka tirsan xukuumadda Kenya oo mar walba garab taagan kulankan waxay kale oo culimadu u mahad celinayaan una ducaynayaan mu'assasada Ansaaru Sunnah iyo madaxdeeda oo kulanka qabanqaabisa qabata maamushana waxay sidoo kale u ducaynayaan una mahad celinayaan 10,000 ee mar walba goobjoogka ka ahaa kulanka oo socday 6 maalmood maalin walbana soconayay saacado badan guud ahaan culimadii kulanka isugu timid
waxay soo saareen baaqa soo socda. kow waxaan ugu baaqaynaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed cabsida Rabbi ayna ku dhaqmaan shareecada Islaamka. waxaan kale oo ku adkaynaynaa in laga fogaado iskhilaafka dirirta Soomaalida dhexdeeda ah iyo daadinta dhiigga muslimka ee xurmada leh. qodobka labaad waxaan ugu baaqaynaa madaxda Soomaaliyeed inay ilaaliyaan wadajirka ummadda, rabbina ay uga baqaan dalka, dadka iyo diintaba, waana in ay ka hormariyaan maslaxada guud ee dalka wax walba oo ka soo haray oo maslaxad gaar ah. saddex waa in qabaa'ilka ku diriraya meelaha hadda dagaalku ka socdo ay joojiyaan dirirta colaadda si shuruud la'aan ah. wixii khilaaf ahna lagu xalliyo wada hadal, laguna gunaanado is-afgarad iyo heshiis, sida jiidda dheer ee u dhaxaysa dhulka u dhaxeeya Buuhoodle iyo Qurlugud ilaa Ceeri Gaabo, Xarfo, Jiicboore oo ah Goldogob duleedkeeda, gobollada dhexe, Hirshabeelle, Jubbaland, Dawacalay oo ku taalla gudaha dowlad deegaanka Soomaalida iyo meel walba oo dad Soomaaliyeed ku dirirayaan. afar waa in madaxda dhaqanka, ganacsatada, culimada iyo aqoon-yahanku u kacaan u dhaqaaqidda joojinta colaadaha hadda socda, isla markaasna ay ka hortagaan in dagaal ka dhaco meelaha colaadda riman. number 5 waa in qurba joogta Soomaaliyeed iyo ganacsatadu ay Rabbi uga baqaan kaalmaynta iyo taakulaynta dadka diriraya iyo guud ahaan hurinta colaadaha si ay uga badbaadaan ciqaab adduun iyo cadaab aakhiro. dhanka kale waxaan ugu baaqaynaa dadka isticmaala baraha bulshada, rag iyo dumarba, inay Rabbi uga baqaan fitnada ay ka abaabulayaan barahooda si ay uga fogaadaan cadaabka Rabbi. qodobka 6 waxaan Rabbi uga baryaynaa ummadda muslimka ah inuu dhibta iyo liidashada ka dulqaado, gaar ahaan reer Gaza oo uu ku socdo gumaad iyo hanti burburin aan turiisho lahayn. sidoo kale waxaan u ducaynaynaa reer Suuriya in Rabbi tawfiiq, deganaansho iyo xasilooni dowladnimo oo buuxda uu siiyo. Rabbi ayaa mahadsan. mu'tamarka culimada ka soo qayb gashay ayaa bayaanka soo saartay. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. بارك الله فيكم. دعاء انتينا نوجد بن جنرال كم يعني كباش شتى دعاء نوجد بين بإذن الله سبحانه وتعالى إنك قدرنا إن فضيل الشيخ أمل تلوين كيسي كوبيجنا مركزات كلا تقديرنا إن لداية تغطيات كان لكن إيضا كوابا بإذن الله سبحانه وتعالى هل كا وحافظية شيخ ظاهر أو عبدي وأنا شيخ هيجا مركز سيجار سجهل وسديتني يسدح كتاب وأن ما لها كتب لغي أقري جزاه الله خيرا سنة كان ولله الحمد ونقول شرفي إنه نقبل بإذن الله سبحانه وتعالى جهودي سافرتن كسنة كبدنا دعوة أسوة تاجنانا وحلا كوبي كرمها سادرتي الشيخ محمد إدريس سويستاك فضيلة الشيخ ظاهر بارك الله فيك. شيخا أن تكريمين لنا 1 minute بإذن الله. تفضل. حياك الله. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا الشيخ ظاهر أو عبدي 40 سنة كبضا أيو دعوة دينته توحيدك وتاقيه هي إلهي سبحانه وتعالى باكا أول مرينا يسا إلهي وقبر يينو لكن إنان أنه دي رجل إنه علمدينا سنة كي هراء واتينو سيدان وكاليتو أينو كل رجل إني مؤتمر كسنة والباء من قف أينو كتكريم إنه سنة كي هراء وحوها الشيخ محمد عبدي أمل سنة كان وحين لجوغا مركي أوه الرئيسي شيخ ظاهر أو عبدي إلهي سبحانه وتعالى عمري يعافماد بركة له ودعوة له الدين لله السيو إلهينا سبحانه وتعالى أمد سيده هرب وقصوا أنفعي الله كو أنفعه شيخو دادكي وريد لصحوضان قيب وين كسوقاتي إلى مالنتي وجامعة إسلامية كسوبحي يكهربا
waddanka gudihiisa ayuuna joogay culimmadii qurbaha aaday ma ahayn meelna ugama bixin intaasna kitaab iyo dacwo iyo diin buu ummadda u akhrinayay ilaahay subxaana wa tacaala ha ka abaalmariyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala cimrigiisa dacwo iyo khayr iyo camal saalix ah ugu khatimo annagana raalli ha naga ahaado intaas yar oo taqdiirka ah ayaan u qadimaynaa jazaahu allahu khayran baaraka allahu fiikum sheekh daahir iga guddoon بسم الله الحمد لله waxaa la yidhaha shuhrada oo dadka hortiisa dadku ku wada bartaan wax fiican ma aha waana ka baqayaa xagga ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii aan soo qabannay oo iska liitay inuu riyo noqdo waxyaalaha qarsoodiga yaa fiican saada salaatuleyl uu sheekhu waa warramayey fadliga waxay ku heshay waa sunna raatibe ama mu'akada cid ku arkaysa ma jirto marka ilaahay baan subxaanahu wa tacaala safaar dalbaynaa waxaa aad iyo aad aan u jeclaa in axseeyo xasan sheekh cali in la siiyo xasanna in sha allah waa siin doonaa intan yartaa waa adiga in sha allahu tacaala allah ku barakay baaraka allahu fiikum jazaakum allahu khayran جزاه الله خيرا إن شاء الله هل كان وحينو هرسن دعادي ونود دعينا فضيل الشيخ عبد الرشيد شعل السوفي وحين سوق جاري وراقات يدو تربضن ضد سنة هرا ميشن كشقيني وجيريودي ضد كانسر لو شيء ضد هذه السالة كجرا ضد كوما كجرا ضد مراد جارة له بل يرى يو مركا جور اللي وجود دعية الربا كوا بروبلم فاميلي أو هاي دلما قياسي كرقف الباب إليه سبحانه وتعالى unbaa og darfiga gaarkaa haysta iyo gaar ahaan oo halka ugu weyna waddankii iyo waxa ka dhacay dhibaatada jirta oo markaa halka aanu insha allah ugu ducaynayno waxaan u dhiibay fadiila sheekh cabdirashiid shacli suufi بسم الله الرحمن الرحيم دعاء بدنا la soo gudbiyay waxa kamid ah gabar waxyaalaha qaar oo dadka taabanaya ma sheegaynaa inta kale sheekhu isku daba qabanaya insha Allah taala gabar yar oo saanuun la geeyey timihiina ka buubeen xiribihiina ka buubeen sunnihiina ka dhaceen xaadina ka buubtay waa cuyuun darteed gabar kale waxay sheegatay 41 jir waaye cudur baa ka bixi waaye dhaqaatiirta markay wada tagtayna waxaa lagu yiri guurso waa gabar cafaafad oo dhoorsan saanu malaynayna insha Allah taala ilaahay guur u sala ayadana gabar kale kiliyaha ummadda oo dhan waxay sheeganayaan kiliyaha iyo kansar iyo 10 sano waxaay iyo cunug la waaye iyo mid xiran iyo waxaas oo dhan sheekhu isku daba qaban doona insha Allah taala ducada ay noo bilaabanaysa nin walbana niyadiisu ilaahay uu aqbalaya aamiin tahalla badiyo تفضل شيخ الحمد لله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنه بلغنا عن نبيك عليه الصلاة والسلام أنه قال ما دعا ملأ وأمن بعضهم إلا أجابهم الله اللهم أجب دعاءنا واغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب إنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين افتح لنا أبواب رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم علمنا القرآن وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعل حفظهما وتدبرهما في أفئدتنا واجعل العمل بهما على جوارحنا واجعل فقهها وفهمها يا رب العالمين في أفئدتنا
اللهم ارزقنا حسن تلاوة القرآن على ألسنتنا. علمنا القرآن واجعلنا من أهل القرآن أهلك وخاصتك يا رب العالمين. وافعل كذلك بأمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. دعاء الله نجا أقبله، دعاء الله نجا أقبله. أنت ولا له سيدا جارك دعاء جارك أسو عدستي علماء وين ودعيان مسلمين تامشي سقوطي مدورنا آمين إلهان إلهي بانو برينا قفل بابا أمورتي سخاسك إلهي باوك إلهي سبحانه وتعالى حاجات كودا الله وفيو حاجات كودا الله سيو انت بكت الله عافيو انت بكت سؤاله وبدنت دعاء لطلبي وبدنت إلهي عافيو قبل شيء كجرتو دمان الله ولا عافيو إن الله انت كربيشن كربدا الله كفيدو دينت انت الاولى دينت الله كفيدو dhibaatada allah ka dulqaado ummadaas halka isugu timid ee walaalaheen ee wada ducaysanaysa ilaahay baryaysa ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ducadeena uu aqbalo dadka walaalaheen ee islaynaya ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kala joojiyo dhiigaas ilaahay inuu joojiyo ilaahay uu dhiiga muslimiinta walaalaheen dhacaya allah law ka jooji innaka ala kulli shay'in qadir inta wanaagsan ee fahmada leh ee aqliga leh الدين تلا إلهه حكم كودا أمر كودا وقديب أنت أولك سنين إلهه كقبو يا رب العالمين نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ولا لهن غزة كوكر بيسن كل بضع الله كفيدو لباتضع الله كدو الغاضو قال هذا إسوسو بحيستين ملك استيسوتي من الله جبيو كل كودا الله جبيو تدبير كودا أي واحد تدبيرنا يان تدمير الله وقدقو قريوه هذا سيدي قريها مسلمين تودميا الله دميو دحدو ذا شقاقي خلافي وكلمة كلا تكتا الله كرقو شذر مدر الله كرقو إلهيها أسود الدجي من يبعث عليهم من يسومهم سوء العقاب سوء العذاب الله أسود الدجي يا سريع الحساب يا رب العالمين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزم اليهود الغاصبين يا رب العالمين ذاتك ولا لهن مسلمين تلبتيسن دبك الله كدول قادو إلهي سبحانه وتعالى قاج يحسار بالغوها الله كدول قادو إلهي أمني أمان الله سيو بيت المقدس الله حريو قال قعنته الله كحريو مسلمين تملك استوجوان بالله إلاليو إخواننا في الشام إلهي سبحانه وتعالى هو إلاليو إلهي الدولة ونأكسن ودينت إلهي سبحانه وتعالى وهو قامسها الله وديبو فتن كيد كاللغوة الله كإلاليو إخواننا في السودان إلهي نبت قليها الله وسع عليو ودن كوذو نبت قليها أديوها ونغضين مجرمين تردبك كواهي الله كدول غاضو مجرمين وحاجرت مسلمين تملك استيجوك تردبك هذا كشغينية الله قبته إلهي قبته الله كقبته مسلمين ملك استيجوك الله قبته إلهي وحان كبرينا مسلمين تردن إلهي دين تودو وسع عليو ردا جميلا دين إلهي وسع عليو إنه ولي ذلك والقادر عليه أخونا يحيى هو يدي الله نحرسته الله نحرسته لما أنت دمتي والدين هالنقدان قبل واحد جرتنا أنا شقين جرتي سنة كي ورسين أو شقين مجمعا كشقين ليسي أو يدنا آخرتك تي يدنا الله نحرسته أنت دمتي الله نحرسته أنت بكتنا الله عافيه نول بو مراد كيسو إلهي ورالك إياه الله سيو إنه ولي ذلك والقادر عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودن كان خير بدن بينكو أرقني مسابقات إيا مؤتمرات إيا ملتقى وناكسن إيا حريات أن مالا بدن لغوهي سنة ودن كان الله إلاليو أمنقيس الله إلاليو إلهي سبحانه وتعالى وحنكبر إن أنت المسلمين تاهين باب الهداية والإسلام الله أغفره إنه ولي ذلك والقادر عليه مسلمين تجوكتنا إلهي هبركيو الله إلاليو ددكود الله إلاليو إلهي وددك إن سوماليا مشرقا ومغربا كوكا فردي gaaladaas wadamada gaaladu u badan yihiin wadan gaala ma jira wadan oo dhan baada iska leh wadamada gaaladu u badan yihiin ku kala firdhay ilaahay oo ilaali ubadkooda ilaahu oo ilaali inta bugtana ilaahu caafi dhammaan ilaahu wadankeena oo hagaagsan nagu soo wada celi annagoo nabad qabna wadankeena nabad qabo oo diinta ilaahay subxaanahu wa ta'ala u taagan ilaahay waxaan ka baryaynaa bi asmaa'ihi alhusna wa sifatihi alula ba ku weydiisanayna allah naga aqbalo ducada allah naga aqbalo dambigeena allah dhaafo كي والدينتنا الله دافو انت مجمعا كسو شقيسي انصار السنه واصحابه يا علماء ودن كانوا دن دمان الهي سبحانه وتعالى الله بركيو عمريودنا الله ديريو دليرada shaqeynaysa habeen iyo maalin halka joogtay
iyagu soo jeeday gabdhihii wiilalba leh khayr baan ugu ducaynay khayr allah siiyo khayr fara badan allah siiyo khayr badan allah siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u gargaaro dhammaan dhallinyarada kulligood mustaqbal wanaagsan allah wada siiyo guur wanaagsan allah wada siiyo intaan guursanin guur wanaagsan allah siiyo inta guursadee guur kale rabta ma u ducaynaa mise waan ka daynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qof walbaba qalbigiisa waxa ku jiro ilaahayna raalli ka yahay allah siiyo meel kastoo joogaan ba allah barakeeyo ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه نمن مدحه خير دائما كالشقيو أخونا نور الدين وهذا بر دعالي يا دمان مرحبا وطن كان مسلمين تاع سومالي وتاغن دينتا يا قال الله بركيو إن شاء الله كل قد دعاء ذا إن شاء الله كل الله نقبله سبحانك اللهم فاميلي كان سومالي ذا يقول تيسنا صلحي وناق الله دحدو ضدقو وصلى الله على نبينا يا ويليش تمدير يا شنا إلهي تمه الله هو جيو تم في عن الله سيو قبلها الله هو جيو كل قد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الدعاء صلى الله هنا واقبله شيخ يحيى تفضل هذه شعداني قبل إسلامين إنسان لبدين إن شاء الله قبل صوصارة قبل إسلامين دعاء الشيخ الله هنا واقبله واتنا صوصو قبل الإسلامين يا عوي قبل الإسلامين يا صوك كوجا dadka buugta qaatana sheeqa uu saxiixayaa buugta la soo qofkii uu qaatay keen la soo kor oo ma sheeq inta buuga qaadatay kor soo fur halkaas sheeqa uu saxiixayaa hala keen insha Allah mu'tamarkeena uu noo xiran yahay sanadkan sanadkiisa kala ilaahay barwaaqo iyo bash iyo diin iyo cilmi ilaahna uu gaarsiiyo الله يدين بركايو إذن كي والدكين إي عرورتين إي حاسسكين إيو إنت إذا كفر عنتي أصل يفرع جنة الله يدين وذكيو أوكي سيس يرو دمر كقوة جهن وحان قيبيي ولا قدور كن وحان فريا مدرسة مركز وين وحان قادنيا شنبقل أو قبضود أو أما هويوين أما هبلاء oo diinta ilaahay aan ku barayno isdiiwaan geliya waa shariif cabdinuur markaska ku yaala diyaar ma u tihiin waana bilaash waxa laga yaabaa in idinka wax idinku daro marka 500 baan qaadanayaa 500 iyo qof ma qaadanayo doorka dambe ramadaan kadibka baan qaadanayaa 500 oo kale diinta ilaahay ina barataan diyaar ma u tihiin قرآنك يا تفسيرك يا فربرك يا فقهك يا سيرة يا حديثك رسولك صلى الله عليه وسلم بعد ديار دينا إز ديوان قليا أنصار السنة تندد إذا إسك ديوان قليا نمبر ذي نقرأ الله يدين بركايو. يا شيخ كبير إسلامي كبير إسلامي. أنا جو إنجليزي. Okay. You speak English. English or Swahili? Like Swahili, the Sheikh will do. You say after me in Arabic, huh? After me, huh? Okay. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ما شاء الله. بسم الله. Hii maana yake ni mimi naamini Mungu ni moja. Mimi naamini Mungu ni moja. Na Muhammad ni mtume ya Mwenyezi Mungu. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu. Na Yesu pia ni mtume ya Mwenyezi Mungu. Na Yesu pia ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Masha Allahu Akbar. Masha. Unapenda jina gani? Faizan. Faiza. Faizan.
Filsan. filsan Yeah. filsan Filsan. oh ما شاء الله magaceedana waa filsan gabadhan insha Allah baarak Allah fiik ilaahay xaqaa ku hanuuniyo